السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. mid ka mid ah daawadayaasha aqoonkaal YouTube aqoonkaal ba wuxuu soo weydiiyey su'aal waxaan rabaa in aan mid ku weydiiyo taasoo ah software-ka aad casharada noogu soo gudubto iyo mikrofoonka aad adeegsato inaad ii sheegto. Cabdirasaaq baa soo weydiiyey marka taas waxaan jeclaystay inaan si caam ah uga jawaabo si daawadayaasha kalena markaas ay u arkaan ama uga faa'iideystaan qaabka marka aan u duubo ma fahantay. marka software-ka waxa ugu horeeya aan ku duubaa OBS waa barnaamij lacag la'aan ah kaasaan ku duubaa ma fahantay. markaan duubo waxaan ku hagaajiyaa ama edit ku sameeyaa barnaamijka loo yaqaan DaVinci Resolve 16 laba qaybood weeye qayb free iyo qayb lacag ah. qaybta lacagta ma isticmaalo markaan waxaan isticmaalaa free-ga waa isku hawshii ugu qabanaya ma fahantay. waxaan uga baahanahay marka taasaan ku edit garayaa markaan casharada sharaxayo sida kan oo kale markaan sharaxayo waxaan adeegsadaa PowerPoint ma fahantay. sawirada markaan hagaajinayo waxaan adeegsadaa Inkscape ama Gimbis. marka kan waa OBS kana waa DaVinci Resolve kana waa PowerPoint kana waa Inkscape kana waa Gimbis iyagoo markaa barnaamijyadan oo ku tusaya insha Allah ma fahantay. mikrofoonka aan adeegsado waxaa loo yaqaanaa Boya BY-M1 lacag badan ma joogo marka waxa weeye $5 markii u dibisa ka Amazon-ka marka barnaamij kaas adeegsada sana codka ku duubaa waa barnaamij mikrofoon maartay codkiisa wanaagsan kugu duubaya qaali ma hadda barnaamijyo waxa ka wanaagsan waa jiraan laakiin uu kaas adeegsada ma fahantay. sabuuradda aan wax ku qoro oo macnaha code editor-ka adeegsada waxa waa Atom marka kan weeye ma fahantay waxa u dhigma VS Code ba u dhigma ma fahantay. xeerka marka waxa weeye aan qoro waxaan ku kaydiyaa GitHub-ka waxaan ku kaydiyaa github.com/aqoonkaal/wb oo WordPress halkaas ku kaydiyaa marka wixii code ah marka oo mustaqbalka looga baahdo halkaas ku jira ma fahantay. shaashadda markaan duubayo oo ku duubayo OBS-ka iyo DaVinci Resolve ku hagaajinayo waxaan ka dhigaa 1920x1080 HD maana high definition ma fahantay waan ka dhigaa si marka uu waadax ugu soo baxo. hadda barnaamijyada markaan ku tuso mid OBS waa kana ma garat hadda uu duubaya wuxuu saa ugu soo noqonayo ka hadda adeegsanayo codka ku duubayo weeye marka waa soo jeesto waa recording hadda uu garanayo ma fahantay. video hadda duubayo buu duubaya ma fahantay. markaan hagaajiyo waxaan ku hagaajinayaa markaas DaVinci Resolve. DaVinci Resolve waa barnaamijkan weeye waa barnaamij maartay runtii wuxuu u baahan yahay xogaa barasho u baahan yahay laakiin haddaad baratid waa barnaamij maartay cawaan daa weeye ma fahantay oo ku qabanaya hawshaadii. kan waa Atom waa isaga uga taqaana ma fahantay. kana waa PowerPoint marka hadda qoraalka hadda aan ka hadlayo marka kan ugu diyaarsan yahay marka halkaas marka aan ka sharxa ma fahantay. kana waa Gimbis barnaamijka marka sawirada lagu hagaajiyo kana waa Inkscape marka barnaamijkan ku hagaajinaya sawirkan ku hagaajinaya kana waa VS Code marka sawirada xeerka lagu qortaa ma fahantay. halkan waa GitHub ma garatay inta barnaamij baan adeegsadaa hoos waan ku qorayaa marka insha Allah linkiyada haddaad u baahatid aad uga gashid ma fahantay. انت ما فهمت عن فيليا waxaan rajeynayaa marka inaad fahamtay barnaamijyada aan adeegsado ama sida markaan duubayo codka iyo fiidiyowga maartay shaashadda kombiyuutarkaan duubayo inaad ka faa'iidaan rajeynaya insha Allah. waa Maxamed Cali aqoonkaal. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.